madaxda kala duwan ee xisaabta haweenweynaha dhalinyarta aqoon-yahanka miida iyo sulaadiinta cuqaasha dhammaantood aad baan u salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kolley madashan waa madal weyn bilan oo boqran runtii anigana agtayda aan ka xuduuday miisaan culus iyo milkabo kale de waxaan odhan jiray in badan baan masraciisa soo taagay oo xildhibaanjisay oo maaragtay orday oo calanka madaxa ku xidhaye maantay garig u tahay intaydu farasku sawqaadaya annaydankeesiyaalidinku heesaya erkiina la jooseyoos ina lagu magaa oo waxay inaysanida haydabkiisa kuwa hela oo anaankaa loo tartamay kuwa libinta hela horumarkaa loo tartamay kuwa libinta hela annaydankeesiyaalidinku heesaya arkiina la jooseyoos ina lagu magaa oo wixii halisiinamo aydinmara sidaan idiin sheegay waa madal bilan waa madal runtii de qabyaaladu waa wax in badan laga hadlay oo aan fiicnayn dawasa daruuri afrika dhexdeeda waa lagama maarmaan adduunyada kale halkay tiirka la ku tiirsan tahay afrikaanku anigoo aan soomaalida iyo somaliland una taargargaraynaynin qabyaaladu waa tiirka u adag ee afrika ku taagan tahay waa laga yaabaa inay dadka qaar qoonsadaan laakiin really dadku waxay kursiga ugu ordaan qof cadaalad helaya oo ka maarmi karaa inuu kursi u ordo business iyo wax kaloo ugu saamayn badan buu u ordi karaa laakiin markaad meeshaad u baahan tahayba weji ku tegayso meesha gaadayseed wax uga mudataba weji ku tegayso waxaa qasaba inaad cid walba meel walba cid ku og tahay halka ayaa joogay guud baan u rajaynayaa axsaabta tartamaysa iyo xildhibaanada socda golaha deegaanka iyo wakiilada dhammaantood waxaan leeyahay congratulation guul baan idiin rajaynayaa si gaara xildhibaanadayda guul baan u rajaynaya waxaa laga yaabaa in inta badan hadalka aadamaha la qalad fahmo laakiin dul istaag bay wax waliba u baahan yihiin waxaynu dul istaagaynaa iyadoo aan soo daahay anigu oon ka raali gelinaya nolosha guud ahaan waxaynu dul istaag ku samaynaynaa tartanka iyo haybo waradka markii meesha tartan yimaado run baynu isu sheegaynaa madaxweynuhu wuxuu codaynayaa xildhibaankiisa wasiirkuna wuxuu codaynayaa xildhibaankiisa gudoomiye faysal halkaasaa u fadhiya waa murashaxaygii madaxweyne intii badan baan ugu saftay waana taageersanahay hadda kale qolyahayga warbaahintu inta badan baalansiga ilaaliyaan oo axsaabta tartamaysa shacabka lagu xidhaan laakiin wixidaan u yaraantaydii in badan baan usoo halgamay waxaanan maaragtay anigaha ku qarsoonayn maalintii u horreysay ee faysal hargeysa ka soo dego 2001 waxaan ahay inantii aragga laga hordaray uga xoqoorta u gelisay maantana islaamta intaas oo dhan baan u taageersanaa doorashadii tan ka horreysay 2012 murashaxaygu wuxuu ahaa mukhtaar xasan allah u naxariisto mukhtaar markuu iska kaaya cadilay murashaxii kale ayuu baan runtii codkayga siiyey waa dee iska doorashadu waa wax furan askariga codeeya wasiirka codeeya xildhibaanka codeeya gudoomiye faysal isagoo axsaabtiisa iyo maaragtay xisbigiisa xildhibaanada ka wada tartamaya wada jecel oo wada taageersan oo jecel dadka labada goloba tegaya inay kuwiisa noqdaan dee xildhibaankiisu u codaynaya aniguna sidaas
xildhibaanada inaan codaynaya iyo hobol garab taaganahay congratulation baa lay mar kale axsaabta qaranka waxaa halkaa iga muuqda cabdinaasir oo runtii ah halgabaal siyaasadeed xisbiga wixii dadka ku sugtana ka mida de waxaan leeyahay qolyahii wax kale waxay odhan jireen qofna codka qofna ciyaartee cabdinaasir waxaan leeyahay naftaada taageero la garab taaganahay iyo axsaabta kale iyo xildhibaanada kale maanta fadhiyada laakiin dee runtii hadalku waa kama kacde labadaydi murashax baan maanta wadayo galbinayaa guul lagu rajaynayaa madasha waan salaamayaa sanada waxaana leeyahay beesha sanadka de kolley komishinka iyo hadda wixii aqabadaba halkooda in kula xaajoon doono laakiin xisbigaygii inaan joogi jiray inkana maaragtay dee weli taageero wahay baan si fiican loo hadlayaa waxaan leeyahay haddii dargii hor dheerku kala beermeyni jiray maanta ilaa haweenkan xubniga madasha ka hadlayay lama kala maqna codkaygu waa inuu meel istaago meel kulo